السلام عليكم أصحابتي قالق بدن وولاشين سمية محمد قليف oo niisoo laabatay mar kale alxamdulilah asxaabta qaaliga badan iisoo dhawaada soo noqod wanaagsan waa walaashiin sumaye oo mar labaad rabto inay nii faa'iideyso waxyaalo badan oo caafimaadka xaggiisa intaani inka badanna insha allah waa rajeynaa inaan niila wadaago asxaabteyda qaaliga badan ilaahay mahad leh oo isku keen soo celiyey mar labaad alxamdulilah aniga waa caafimaad qabaa alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin intaas inka badan ilaahay ka rajeynaa inankana waxaa u malaynaa inaa caafimaad qabtiin asxaabteyda qaaliga badan ii soo dhawaado caafimaadkiina ilaahay hanii ziyaadiyo inta xanuunsan xanuunka allah ka dulqaado inta caafimaad qabtana allah u ziyaadiyo maasha allah asxaabta qaaliga badan ilaahay dartiisaa nii jeclahay inankana waa filaaya insha allah biidnillaahi baari asxaabta noo soo dhawaada maanta faa'iidooyin badanaa ka wada faa'iideysanaynaa alxamdulilah maalin dhabeed waxaan ka wada hadlayna waa ogtiin xagga dumarku ahaa alxamdulilah gabdhahiina qaaliga badan gabdho badan ay la soo hadleen oo alaabtii aan sheegayo isku dardarsaday alxamdulilah oo caafimaad ku dareemeen alxamdulilah inkastoo gabdho qaarkood ay dheheen wareer yaraan dareemin waxaas looma baxa xanuunka adiga ku haya ayaa wax kasta macnaha ka muhiimsan inaa caafimaadada ayaa ka muhiimsan shayga marka isticmaalaysid laazim wax waa dareemaysa haddii jirkaada xanuun uu ku jiro asxaabteyda qaaliga badan ii soo dhawaada mar kale insha allah caafimaad kheyr qaba ni rajeynaa biidnillaahi baari ilaahay dartiis ayaa nii jeclahay dadka asxaabta qaaliga badan oo nagu cusub waxaan leenahay samskaraabta iyo leegta iyo sheerta iyo kumadiga xaggiina waaye asxaabta qaaliga badan gambaleelkana furta sida aa u heshaan akhbaaryada macnaha walaashiina sumeeyo oo macnaha inaa xagga caafimaadka xaggiisa ah insha allah biidnillahi kaari intan la sii joogto walaalaheena qaaliga badan xaleda noo soo dhawaada leegtaha hilmaamina iyo sheerta sifa ah ee walaalaheena qaaliga badan ay uga faa'iideystaan asxaabteena qaaliga badan maanta meesha maxaan ku haynaa xabasowdo iyo saliid zaytuun iyo saliidda cadde iyo saliidda cuntada lagu karsanayay iyo waxaa meeshaan ku haysanaa dhagayaro waxyaalo badan ay u fiican tahay ayada naftigeeda dadku way isweydiinaya sumaya maxay noo keenta maanta caddeyna maxaa lagu sameynaa cuntale lagu karsan jiray maya ha isdhihin gabadha walaasheeda ah iyo wiilka walaalkay ayaan la hadlayaa horta waxaa igu ogeedan aniga saaid igu ogeedan waxay ahayd toobin inaan sameeyo toobintana waa ogtiin sunnada nabigeena waa asxaabta qaaliga badan soo dhawaada in zaa'id loo isticmaalo aada u fiican tahay asxaabteena qaaliga badan abuubo ama abaaya ma leedahay ama aabba ama hooyo ama walaalo ama ayeeyo qofkuu doono ha ahaado ma leedahay madax xanuun ma leedahay wareer ma leedahay hilmaam ma leedahay hataa indha xanuun haddii ay jawaabtaadu ay tahay haa madax xanuun indha xanuun warwareer hilmaam badan madaxiyo kusoo da-ay markaad dukunaysid wareer badan aad dareemaysid subaxda markaa hurdo kasoo kacda warwareer jiro markaa hurdada kasoo kacda subaxda sida aad dareemaysid inuu madaxa ku kala go-an yahay in markay dadka ay kula hadlaan ama ay kula kaftamaan hadalka aad dhibsanaysid taleefonka hataa markuu kusoo dhaca adiga aad dareemaysid inaa madaxa ku kala go-aayo haddee tahay jawaabtaadu haa horta koow waa inaad toobin samaysaa toobinta waa sunnada nabigeena waa haddii aa awoodid waa haddii aa aaminsan tahay weliba adigoo niyeystay weliba adigoo macnaha oo laba rakac dukaday weliba adigoo niyadda geliya oo weyse qabo niyadda geliya inaa ku caafimaadaysa maasha allah alxamdulilah niyadda shayga la geliya horta aada u fiican waa ogtin xadiid dhammaanaa macnaha kasoo waramay 40 la dhahaayo qofkii yaqaanaa yaqaano alxamdulilah maasha allah dadkeena soomaalida diinta aada u yaqaanaan alxamdulilah intaas inka badanne ilaahay aan ka rajeynaynaa biidnillaahi baar alxamdulilah inta nugu filan waa naqaanaa inka badanna waa baran doonaa insha allah biidnillaahi kariim haddee tahay jawaabtaadu haa madax xanuun toobin horta waa inaa samaysaa because toobinta waa sunnada nabigeena muruq xanuunka madax xanuunka hilmaamka dhiig gororka neerfaha hilmaanka zaa'idka loo hilmaa adoo gacanta wax ku yeysid oo aad raadinaysid ama wax ameel adhigta aad raadinaysid intaba toobinta u fiican tahay alajiga waxay kale u fiican tahay samboorka waxay toobinta u fiican tahay maxaa la dhihi jiray hurdo la-aanta warwareerka egfashanka dhiiga alxamdulilah sixirka jinka isha alxamdulilah toobinta waxyaalo badanay u fiican tahay alxamdulilah
dhiigiyo ku bedelmiyo adigiyo qof cad ahaa marka hore ama midabkaada furnaa dadka oo isku jiraan dad baa madow dad baa midabkooda furan dad baa cadaan ah alxamdulilah midabkaa kul ilaaha bixiya alxamdulilah inta ilaahayna si waa ku mahadinaynaa dad baa midabkooda dhiigga bedelaa dhiigga wasaqda jirkooda ku jiro darto midabkooda bedelaa qofkiioo cad ama maariyan qurxoon ah dhiigga wasaqda ama qofkiioo xoogaa iska madow zaa'id sii noqonaa because of dhiiggiyaa wasaq ah marka haddii aa rabta inaa caafimaad heshid waa inaad talada ilaahay saarataa toobinna samaysaa weliba madaxa hadda arrinta aan ka wada hadlayno waxaa waaye madax xanuunka markii intaas aad samaysid toobin markaad samaysid oo madaxa macnaha iska toobtid oo xagga caafimaadka toobinta inay u fiican tahay waa ka warhaysiin qofkii yaqaano toobin markaad samaysid madaxa iska toobtid habeenka koowaad madaxaada ma dhaqaysid mise lama qabaysanayo qofka ku toobay ku leeyahay waa qof macnaha saaidu kuu nadiifinaya xagga nadaafadda oo macnaha ka shaqeynaya markii uu nadiif lagaa dhigo xabasuudadaada iska marsane subaxdii markaa soo kacda marka maxaa meeshan kugu hayaa saliid cadeey waatana saliiddiina caadiga cuntada aan ku karsana ama baastada ama bariiska qofkii yaqaana dee weliishayna kulley way yaqaana ayaga labada mar cunto kariska taa way yaqaanaan maasha allah ilaah u barakee inta maxaa ku haysanaa xabasuudadeena oo nadiif ah xabasuudada waa ogtahay nabigeena sal ly slam aad u noogu faaniyey waxay kale u fiicantaha hataa isha jinka sixirka u fiicantaha xabasuudada guriga taal hataa il ama jin ma soo gala maasha allah sixir iyo xaas inta maxaa ku haysanaa zili zaytuun alxamdulilah zili zaytuunka waa ogtihiin geedka aada loo xayisaya iyada naftigeeda jinka muruq xanuunka aada ugu fiicantahay madax xanuunka maxaa inta ku haysanaa dhagayaro shiidan waa ma aha qorfaya dhagayarahaas oo shiidan intaas kan oo 2 koob ah saliid cadeydan oo 2 koob ah iyo intaana isku darsanay iyo kan waa isku karkarinay digsiyaa ku shubay marka isku karkarisid oo si fiican isku karkarisid dhulkaa dhiganay way qaboobe shaamiira raarsane waa kala miirane markaa kala miiratid caaga ku shubane ama makeebad waxa haysatid ku shubane ad wax af banaan markaa ku shubatid 3 bire binaas 3 bire bilfalaq 3 qul wallah ayad kursiyo 3 ah asmaa'ul husna oo 3 ah saliga nabiga oo 3 ah alxamdulilah intaas adkaar iyo qur'aan haddaa iskugu geysid waa ku tufane 3 mar ku tufane haddii 3da in ka badan aarabtidna 7 mar ka dhigane haddii rabtana 7 mar ka dhigane inta adiga awoodid haddii qof oo ahlu salaad ah ahlu tasbiixa ahlu tufku qiraa'at taqaanidna waa u dhiibanay asagana intaas uu kugu sameynaa ilmaha ayaga naftigooda hadday quraanka ilmo yaqaana oo kale kuu joogaan ayagana xalada igu tuf marka intaas aad samaysid subax kasta madaxa marsane habeenkii madaxa marsane habeenkii markaa marsatid habeenkeeda labaad subaxdeeda kala haddana waa ka qabaysane markaa ka qabaysatid haddana madaxa marsane cabaara ku joogay marka waa qofka shaqeynayna oo guriga joogo waaya qofka shaqeynaya wuxuu sameynayaa habeenkii bisoo marsanaya because xabasuuda ku jirto banaanka ma loola bixi karo waa ogtiin xabasuudada marna caafimaad waa marna waxay keentaa leer ama qabow dadka gelisa waa dareemaysin qofka yaqaana marka hadduu qofka shaqeynayo wuxuu marsanayaa habeenkii markuu marsado maxaa la dhihi jiray subaxda aliseeda markuu ka qabaysanaa subax buu u goynaa qofkaas maadaama uu shaqeeyo uu banaanka aadaay qofkii aan shaqeynayn guri iskaga jirna labadaas waqti oo cirguduudku iska marsanaya weliba asigoo niyeysanaya inuu ku caafimaadayo biidin ilaahi baari caafimaad waa iskaga dareemay waa saliid cadeey zali zaytuun wax yar xaba sowdo iyo maxaa la dhihi jiray iyo dhagayaraha alxamdulilah maasha allah dhirteena ilaahayna siiyey asxaabta qaaliga badan asxaabta nagu cusub waxaan leenahay gambaleelka furo samskaraabka saaro leegta iyo sheerta waa dhinacaada kumidiga noogu dhaaf wixii macnaha oo adiga fikradaada ah gambaleelka furo sifa a u heshid fiidiyoga kale aan soo wada saarno insha allah biidinlahi karin asxaabta hore noola sii joogta ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin ilaahan ii barakeeyo kuwa hadda nagu soo biiray iyo kuwa hadda nagu cusub iyo kuwa macnaha noola sii jooga labadaba waxaan leenahay ilaahan ii barakeeyo insha allah biidinlahi karin inankana leegta saara sii shaalgareeya asxaabtiina qaaliga badan qiimaha badan usii shaalgareeya sifa ee ayagu uga faa'iidaystaan asxaab qaarkood waxaa jira madax xanuun qabaan haddii ay maanta macnaha ay kilibkan ay arkaan
macnaha isku sameeyaan caafimaad ilaahay uu ku siiyo ama toobinta ha ahaata ama ha ahaata saliidda keligeed oo la isticmaalayo haddii intaas ay isticmaalaan caafimaad iskiga dareemaan macnaha adiga waxay ku haynayaan abaal ajiraa ka helaysaa insha allah biidin illaahi baari maxaa la dhihi jiray youtube-ka dee ani keligee ma lihi inankana waa ila leedihiin because wixii caafimaad ku jira inankana waa iisoo gudbisiin an waa nii gudbinaa dad badanaa wax iisoo sheego oo idhaha saas samee saas noo soo samee dadna waxaa macnaha waxay dhaan samee saasa u baahannahay maxaa talaa ana siin kartaa marka maasha allah alxamdulilah youtube-kan waa wada leenahay ana keligee ma lihini subscribe-ta leegta kulley inakaan igala rabaa dhiirigelinta xaggiina anna wixii caafimaad ku jiro ilaaha caafimaadka haaya wixii dadaala insha allah waa niisoo garab qabanaya biidin ilaahi baari ilaahana garab qabto inta xanuunsan xanuunka allah ka dulqaada caafimaad allah ugu bedelo intii dhimata allah u naxariista inta caafimaad haysato aniga ka kuu ahayna alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin ilaahay saas iyo si ka badan insha allah ilaahay noo sii ziyaadiyo insha allah biidin ilaahi baari asxaabta toobinta macnaha hoogaa ka cabsanaysa ama dhees sumayaan sakiinta ka cabsanaa ama dad iska waxaa jira iska cabsi badan oo sakiinta wax weyn ma aha ama macnaha maxaa la dhihi jiray cirbada ka cabsanayaan waxaan leenahay ama toobintaba aana macnaha aana ku haysana ama aana rabin inkastoo sunnada nabigeena ay tahay markasta loo baahan yahay ama ka cabsanayaanba waxay samayn karaan saliidda keligeeda isticmaalayaan dadka guriga joogo waan kusoo warceliyey banaanka aana aadeynin laba waqti isticmaalayaan habeenkiina waa ka qabaysanayaan dadkii oo macnaha oo maalinta shaqo aadaya habeenka guriga joogo habeenkii marsanayaan subaxda way ka qabaysanayaan 7 bari insha allah biidinillaahi baari isku day insha allah biidinillaahi baari laakiin marka toobin sameysay aad ugu sii fiican tahay insha allah biidinillaahi kariim ilaahay caafimaad ha niigu daro ilaahay macnaha ana sii caafimaad khayr qabo inta xanuunsan xanuunka allah ka dulqaaday biidinillaahi baari ii soo dhawaada asxaabta qaaliga badan waa haddii aan iga soo daahay cafwan halii saamaxo caafimaadaan ii rajeynaa biidin ilaahi kariim soo dhawaada waa unsaliideen caddayda aheyd isli zaytuun iyo dhegayaro haye asxaabta qaaliga badan ka faa'iidaysi wacan dadaal wanaagsan asalaamu calaykum